الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقة دين اللي حادة كمتها حلقات كرمضان وحان كهد لنا إن شاء الله تعالى صومك يحكموين كجرة وحكستو إلهي وشرعي حكموين باكجرة فائدوين باكجرة مرأيا لك قوستا كواسو يسوق جرة كوا الدنيا يكوا آخر أنت بيسوق جرة صومكن إلهي وشرعيي حكمة فربضان باكجرة والله سبحانه وتعالى يقدرتو وحويا شرعيي وهي الله سبحانه وتعالى وعليم حكيم ومن علم بدن وضدك وحا نفعك بدن له وفائدة بدن لا إساق أيا قرانيا وانا مد حكمة بدن أو شيء والبهل كيسا أيو دقا حكمك كجرة صومك وحا كمد إنو يهي صومك عباده إلهي لو قد دوان أيو وقفك إلهي قد دوان أيو إنو كتغو وحي نفتي سواء جعلايد أها عنطو أها شراب أها شهو إنو كتغو وإلهي درتي وكتغو markuu qofku sidaas sameeyo waxay tusinaysaa iimaankiisu inuu dhab yahay waxay tusinaysaa maxabada iyo jacaylka ilaahay uu jecel yahay inuu xoog badan yahay rajada ilaahay uu rajeynaya inuu xoog badan yahay marka uu cuntadii iyo sharaabkii iyo wixii la midka ahaa ee naftiisu jecelayd uu ilaahay dartii uu uga tago taasay tusinaysaa waayo qofku shay kama tago ilaa hadduu ka tagana wuxuu uga tagaa shay kale oo agtiisa ka weynaanshiya badan marka qofka cuntadii iyo sharaabkii iyo shahwadii uga tagay marka ilaahay dartii waxay tusinaysaa inuu aaminsan yahay waxa ilaahay agtiisa yaalay ajar ah ee uu helayo inuu ka weyn yahay kana qiimo badan yahay kana qaalisan yahay waxan uu ka tagay xikamka waxa kamida ku jira soomku wuxuu sabab u yahay taqwa ay Allah ka cabsi oo qofku wuxuu ka faa'iideeyaa Allah ka cabsi buu ka faa'iideeyaa taqwaduna waxa weeyaan waa inuu qofku la yimaad wixii ilaahay uu faray wixii ilaahay uu diidayna uu ka tago quraanka ilaahay uu ku sheegay ya ayyuhalladheena aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun wuxuu ilaahay yiri kuwii mu'miniinta ahaayo waxa la idinku faral yeelay soom sida loogu faral yeelay kuwii idinka horeeyay si aad u baqdaan oo aad ula timaadaan taqwo iyo Allah ka cabsi aad ula timaadaan qofka soomani waa mid la amray inuu la yimaado wixii taaco iyo wanaag ah iyo inuu ka tago wixii macaasi oo dhan qofka aan ka tagin ee waxa weeyaan la imanaya macaasidii xumaantii wanaagii aan la imanayn isagoo oo sooman waxa uu noqonayaa qof aan soomkiisu aanu waxba u faa'iideyn buu noqonayaa sida gudba rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu qofka aan ka tagin hadalka beenta ah iyo ku amal falkiisa iyo jahliga ilaahay baahi uma qabo inuu ka tago cuntadiisa iyo sharaabkiisa sida awgeed baa qofku marka uu yahay qof sooman naftiisu markay doonto inay xumaan samayso wuxuu xasuusanayaa soomkii dabadeetna waa ka istaagaya ficil xun inay samayso ayay doontay naftiisu soomkii buu xasuusanayaa ficilka xumaa waa iska deynayaa hadal xun inay ku hadasho ayay doontay naftiisii soomkii buu xasuusanayaa waa iska deynayaa sida daraadeed baa rasuulku wuxuu inagu dhiirigeliyay qofka hadii la caayo ama la dagaalo isagoo oo sooman inuu markaa qofkaasi isaga joojiyo inuu yiraahdo waan soomanahay fa in saabahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni imru'un saa'im hadii qof uu caayo buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ama uu la dagaalamo ha yiraahdo anigu waan soomanahay macnaheeduna wuxuu yahay inuu xasuusinayo naftiisa in qofka soomani uu yahay mid loo diiday caayda iyo dagaalka isla markaana uu u sheegayo qofkani in uu waxa weeyaan sidoo u caayi karo sidoo la dagaalami karo laakiin waxa uu diidaya uu yahay soomka oo soomku uu ka hortaagan yahay cibaadallah waxa kamida xikamka ku jira soomka qofku marka uu soomo qalbigiisii ayaa wuxuu noqonayaa mid markaa fikiraya wuxuu noqonayaa mid ilaahay xusaaya waayo naftu waxyaabaha ay jeceshahay oo cuntada iyo sharaabka iyo shahawaadka ah dharginta laga dhargiyaa waxa ay keentaa ghaflo ay ku keentaa qofka waxa laga yaabaa xataa inay keento in qofka qalbigiisu uu dhinto marka caloosha ay madnaato qofka qalbigiisu uu fikiraya ayuu noqonayaa waxa weeyaan ilaahay buu xusayaa sida daraadeed baa quraanka ilaahay wuxuu ku sheegay cidda
ugu badan ama ugu horeysa ee nebiyada ka hor iman jirtay waxay ahaayeen dadka loo nicmeeyey ee raaxaystay ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma culimmadu markay macnaynayaanna waxay dhahdeen waxa weeyaan raaxaysiga faraha badan leh ee qofku waxa weeyaan had iyo jeer uu dhargayay ee uu waxa weeyaan shahawaadkii waxa weeyaan ku dabaalanayaa waxay keentaa qofku inuu fikiri waayo sidaa daraaddeed baa rasuulku sideedaba wuxuu inagu dhiirigeliyey cuntada iyo sharaabka inaan yaraysano rasuulku sal allahu alayhi wasallam wuxuu yidhi maa malaa ibnu aadama wicaa'an shara min batni ina aadam ma buuxiyo weel ka shar badan calooshiisa buu rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasallam bixasbi ibni aadama luqaymaatun yuqimna bihaa sulbah ina aadam waxaa ku filan darsiimo uu darsado oo uu dhabarka ku toosiyo fain kaana laa maxaalata haddii uu ka maarmi waayo fathuluthun liطacaamihi wa thuluthun lisharaabihi wa thuluthun linafasihi macnaha cunto badan inuu cuno hadduu ka maarmi waayo calooshii saddexa u qaybiya buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam 3 meeloodoo meel cuntada ha ku rido 3 meeloodoo meelna sharaabka ha ku rido 3 meeloodoo meelna neefta ha u banneeyo buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed bay mashquuliyaan qofka waxyaabahani oo ay ka mashquuliyaan dikrigii ilaahay iyo xuskiisii iyo oo qaflad bay ku ridaan sidaa awgeed baa la saxaabiga la dhaha xandala ayaa rasuulka wuxuu ku yidhi maalin baa rasuulka wuxuu rasuulka ilaahayow xandala munaafiq buu noqday markaasaa rasuulku wuxuu yidhi maxaa dhacay markaasaa wuxuu yidhi markaanu kula joogno ee aad janno iyo naar nooga waranto waxaad moodaa inaanu arkayno jannadii iyo naartii markaanu kaa tagna ee dumarkii iyo ciyaalkii iyo maalkii aanu dhex galno kuwiiba ma nihin buu yidhi markaasoo mashquulkaasuu keenaa xikamka walaalayaal waxaa ka mid ah ku jira soomka qofka qaniga ahee maalqabeenka ah ayaa waxa weeyaan lagu barayaa nicmada ilaahay uu siiyey qofkii qaniga ahaa ee dhareegsanaa haystay markaa wuxuu wax ku iibsado wuxuu wax ku cuno wuxuu wax ku cabo wuxuu huwado iyo wuxuu waxa weeyaan kale wuxuu siisanayay ayaa waxa la xasuusinayaa oo la barayaa nicmadaasi marka uu ogaado ee uu gaajoodo waxa weeyaan wuxuu garanayaa marka koobaad nicmadan weyn ee ilaahay uu siiyey deedna ilaahay buu ugu mahadnaqayaa marka labaadna waxay u faa'iideynaysaa inaanu iloobin walaalihiisa baahan ee iyaga laga qadiyey ee waxay cunaan aan haysan waxay cabbaan aan haysan waxay ku arad beelaan aan haysan inaanu ilaawin bay dibadeetana ay u keenaysaa waxaa ka mid ah xikmooyinka ku jira walaalayaal soomka tababar nafta la tababaraayo oo qofku uu ku tababaraayo naftiisa inuu maamulo waayo naftu haddii hoggaanka loo sii daayo waa ammaaratun bisuu xumaanta ayay dadka fartaa cid ilaahay uu u naxariistay mooyaane qofku markuu naftiisii ku xakameeyo inuu waxa weeyaan maalinimadaasi ka ilaaliyo wixii soomka jebinayo cuntadii iyo sharaabkii iyo wixii la midka ahaa naftiisii mid maamulay buu noqonayaa waxyaabo kalena uu ku maamuli karaa markaa naftii haddii kale hoggaanka ayay goosanaysaa dabadeetana waxay noqonaysaa qofka mid hallaysa ayay noqonaysaa xikamka ku jira walaalayaal waxaa ka mid ah nafta waxa weeyaan soomku uu kibir jebiyaa naftu waxyaabaha ay u baahan tahay ee shahawaadka ah haddii ay iska hesho had iyo jeer way raadsanaysaa way helaysaa way kibraysaa laakiin marka laga joojiyo ee la xakameeyo naftii waxaa ku dhacaysa in kibirkii laga jebiyo xikamka walaalayaal waxaa kaloo ka mid ah soomku wuxuu cidhiidhi geliyaa meelaha dhiiggu uu maro ee qofka jidhkiisa ka mid ah meelaha dhiiggu uu marana shaydaanka ayaa mara siduu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam dabadeedna waxaa imanaysaa waswaaskii shaydaanku qofku uu waswaasinayay baa yaraanaya cidhiidhiga ay cidhiidhi galeen awgeed ina shaytaan yajri min ibni aadama majra dambu rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo yaraanaya shahwadiisii baa yaraanaysa oo waxa weeyaan degaysa markaa sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhallinyarada markuu ku dhiirigeliyey guurka kii aan awoodayn wuxuu ku dhiirigeliyey inuu soomo yaa macshara shabaab man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj rasuulku wuxuu yihi ururkii dhallinyaradow kiina awooda markaa inuu guursadaa ha iska guursado ee kharashkii guurka awoodi karaya waman lam yastati fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj waayo isaga ayaa indhaha u laabitaan badan xubinta tarankana isagaa u fiicnaan badan oo ilaalin badan waman lam yastatic facalayhi bisoomi fainahu lahu wijaa kii aan awoodayna soom ha laazima buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam waayo isaga ayaa dhufaan u ah buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xikamka ku jira soomku walaalayaal way badan yihiin waxaa ka mid ah faa'iidooyinka iyo xikamka ku jira soomka waxaa laga faa'iidaa caafimaad baa laga faa'iidaayo caafimaad buu wataa waxaa la yidhaahdaa markaa jirhka bani aadamka
waxa weeyaan unugyo jidhka ka mid ahoo dhintay ayuu iska saaraa, kuwo cusubna wuu soo saaraa. unugyada xilliga uu iska saaraya waa marka jidhku uu gaajoodo ayuu iska saaraa baa la idhaahdaa. dhakhaatiirta haddii aad waraysatana waxay ku odhanayaan xilliyada soomka gaar ahaan ramadaanta waa xilliyada dadka ugu yari ay yimaadaan goobaha caafimaadka ee waxa weeyaan dhakhtarada iyo farmasiyada ay yimaadaan, caafimaadna waa laga faa'iidaa. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.